guud ahaan Soomaaliland waxa maanta si rasmi ah ugu soo gabagaboobay imtixaanaadkii shahaadiga kaasi oo bilaabmay maalintii Sabtidii ee bilowgii toddobaadkan waxaana maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Sorno iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Farax iyagoo ka warbixiyay muddadii ay imtixaanaadku socdeen maanta waxa farxad u ah wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland oo dhan in imtixaankii laga qaadayay 3,000 oo arday uu ku dhamaaday si guul ah oo ardayda la eegaya aqoontoodii oo si fiican ay u dhacday oo 3,000 kuna arday iyo 4,000 oo hawlwadeen oo hawsha ka shaqeynayay iyo 7,000 ee wasaaradda waxbarashada oo xafiiska imtixaanaadku lagu hogaaminayaba ay si guula ku dhamaatay ardaydu waa sidaad ka yar war haysaan COVID iyo waxba jiray waa tii fasaxyana ay galeen waxoogaa warwarahayay ardayda oo ku saabsan inay maadooyinka qaar aan loo dhammaystirin iyo siday balantu ahayd inay 70% aan form 4ku ka iman waxa weeye taa horta waxaan cadeynaynaa ardaydaana u sheegaynaa labada arrimood xafiiska imtixaanaadku dib u eegi doona waxaanu aad iyo aad ugu kalsoonahay 70% inuu imtixaanku ka koobnaa hase ahaatee maadaama ardaydii fiilka joogtay ay cabasho badan ka keeneen waxa go'aanka iyagu yahay in waqtiga sixitaanka dib loo eego arrinta aad baa loo eegi doonaa tan kale ah inaan ma taqaanaa waxa jira waana runtood waxaan uga markhaati kacayaa cutubyada qaar inaan ardayda loo dhammaystirin oo fasaxu ka soo gaaray wixii imtixaanka kaga jira markaanu eegno horta wax walba waxa lagu ogaadaa waa sixitaanka markaanu eegno guddiga boardku waxa eegi doonaan marka la saxayo waanu u kuurgeli doonaa wixii ay cadaato inay waxa ardaydu sheegayaan xaqiiqo tahay wax alla wax awoodayadaanu kala hadhi doonaa ma jiro waxbaan ka qabanaynaa daga kale mas'uuliyiintani waxay sheegeen in ciidamada booliska ee Soomaaliland ay gacanta ku dhigeen dad ay sheegeen inay khalkhal gelinayeen habsami socodka imtixaanaadka waxay ku guuleysteen ciidanka booliska marka operationka hawlgalka inta laga kala sameeyo qof iyo laba qaloocan laga waay maayo marka waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan 9 qof oo ku xadgudbay sharciga waxbarashada iyo hanaanka imtixaanka de kole faahfaahinta markay ku habboonaataa la sheegi doonaa laakiin ciidanka boolisku network waxay hayeen isku xidhan ilaa tuulo ilaa magaalada caasimadda isku xidhan marka ciidanka boolisku siday ay ugu raad joogeen inay habeenba meel ay habeenba geed u hoos taagayeen waxay ku guuleysteen in 9 qof soo qabtaan waxaana lagu qaadi doonaa sharciga khuseeya iyo nidaamka garsoorka ay ku awoodda laba loo gudbin doonaa iyadoo hore Puntland ay u sheegtay inaanay Soomaaliland imtixaanaadka shahaadiga geen karin deegaanada Sanaag Bari hase yeeshee mas'uuliyiintani waxay u mahad celiyeen halwadeennadii imtixaanaadka shahaadiga ee Soomaaliland gaarsiiyay deegaanadaasi waxa kale halkan bari uga diraya runtii hawlwadeennadii imtixaanaadka u qaaday gobolada bari waliba bariga fog runtii oo si wanaagsan oo karti badan leh imtixaanka meel walba ku gaarsiiyay runtii kuna soo gabagabeeyo imikana runtii soo jeeda qolada hambaliyaan hawada u marinaya Umar Sadiq telefishinka CBA Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom